shirka jaraa'idaan ku qabtay xafiiskayga magaalada Boosaasood wuxuu daaraa amniga iyo xasiloonida magaalada Boosaasood. waayahay magaalada wararka soo baxaya ee dawladda iyo BSF isdhaafsanayeen maalmihii ugu dambeeyay ayaa jira waa awood magaalada gudoomiyaha ka tahay ciidamo iyo wax dul fadhiya maxaa magaalada xaaladeeda ka sheegaysa adeer horta aan ku saxo BSF waa dawladda ka mid tahay waa ciidan dawladeed weeye maaha ciidan gaar ah shacabkan yaan loo fahmin loona sheegin inay yihiin ciidamo gaar ah BSF waa ciidamo ka mid ah dawladda Puntland waa ciidamada hadda agaasimaheedu madaxweynuhu horena u soo magacaabi jiray haddana uu xilkii agaasimihii hore ka qaaday una magacaabay agaasimo cusub oo hay'adda BSF Amiin Xaaji Khayr 24 bishii 11aad 2021 marka yaan loo fahmin inay tahay BSF ciidan gaar ah BSF waa ciidamada Puntland bay ka mid tahay oo difaaca wadanka qayb ka ah arrinta Boosaaso xaaladda ka jirta maxaa dadka u sheegay dadka waxaan u sheegaynaa Boosaaso inaysan wax dhib ka jirin inaanay ka jirin wax khalkhal gelinaya amniga ay jiraan kaliya amar diido agaasime la bedelay oo diiday inuu xilkii wareejiyo iyaduna waa dhamaanaysaa xilkana waa laga wareejinaya taliya qaybtu wuxuu sheegay Boosaaso in xaafada laga qaxayo anaguna saaka dhulkii baan tagnay iskool la xiray baa jira xaafada laga guuraya jira dawladdu markale waxay sheegtay in difaaciye ay qodanayaan BSF-tu Boosaaso dadkii barakac hadda la sheego ma jiro kaliya waxaa jira ciidamo jooga xaruntii BSF-ta oo taliya la bedelay wali uu la joogo inay dadkii guryaha ku qaraacayaan ay leeyihiin ka qax iyadoo ujeedadu ay tahay in loo arko Boosaaso in dhibi ka jirto laakiin waxaan cadeynaynaa inaan Boosaaso wax dhibi aan ka jirin magaaladu ay degan tahay iskoolaadkii xaafadahooda ku dhaw ay joogeen uunba ardaydii dib uga soo noqotay waxaanu hadda amarnay in macallimiintu ay dib ugu celiyaan iskoolaadka ardaydoodii xaafadii in sidoodii loo joogo inaan la barakicin cid maanta cabsi gelin kara Boosaasona ma jirto dowladda mas'uulka amniga